Ma garanayo inuu YouTube-ka aqbali doono muuqaalkan. أعوذ بالله بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. Maanta waxaan nimid dhulka laga isticmaalo sixirka madow. Waxaa dhaqan u ah inay shayaadiinta gargaar weydiistaan. Waa kulan diimeedka waxay ugu yeereen fowdu ee ugu weyn caalamka, gaar ahaan Afrika. Sixirka adduunka ugu khatarsan ayaa halkan laga isticmaalaa. Wiilkan yar ayay duugi doonaan. Tani waxay keensatay inay carruurta duugaan, gubaan, kadibna ay dib nolosha ugu soo celiyaan. Wayna khiyaameen. Halkani waa galbeedka Afrika ee dalka Benin iyo caasimadeeda Fadouga. Halkani waa dalka Benin. ولا يفلح الساحر حيث أتى. Haddaba, maxaa ka jira sixirka madow ee dalka Benin? Markaynu galayno suuqa ugu weyn ee Benin, kaasoo ku yaala magaalada Cotonou, waxay noo sheegeen inay mamnuuc tahay kaamirada wax lagu duubo, dadkuna ay aad uga carroodaan. Sidaa awgeed, waxaan ku khasbannahay inaynu isticmaalno telefoonka si qarsoodi ah, si aynu si qarsoodi ah wax ugu duubno. Marka hore, waxaynu maraynaa suuqa Fadou, kaasoo ku dhex yaala magaalada, si aynu u aragno waxa lagu iibiyo suuqan iyo caadooyinkooda. Tani waa suuqa Fadou. Wax kasta oo halkan yaala waxaa loo isticmaalaa sixir, in wax lagu faaliyo, baalashii, maskii iyo madaxyada eeyada. Meelba markaad socoto, hareerahaaga waxaad ku arkaysaa baktiyada xayawaanka. طلع أنت بتمشي كيف؟ الحيوانات الميتة. Kani muxuu yahay? Waa madaxa faraska. Medicine can be solved here. Aad bay meesha u soo uraysaa. Meeshaan hadda taaganahay waxaa yaala timo bilaadan, qooley, jiir, waraabe iyo wax kasta oo maskaxdaada ku soo dhacaba. Waxay yiraahdeen maqaarka waraabuhu waa maqaar aad iyo aad u xooggan. Powerful skin. Marka maxay u isticmaalaan? Wax walba ay u isticmaalaan. Waxay yiraahdeen daawo ahaan ayay u isticmaalaan. Dadka reer Benin iyo adoonsigii uu dalkani soo maray sanado badan ka hor, waxaa khasab ah inaan booqano tuulo u dhow magaalada Cotonou. Tani waa magaalo dhan oo ku dhex taalla haro lagu magacaabo Jamfi. Dadka tuuladan degan waxay ka soo baxsadeen adoonsigii, waxayna dhisteen tuuladan Sabaynaysa, taasoo lagu magacaabo Furnace of Africa. Halka kaliya ee aad gurigaaga ku gaari karto waa doon. Bal qiyaas sidee bay noqon lahayd adigoo iskuul u socda ama masjid qaabkan u aadaya. Dalkani waa mid Nigeria ka duwan, balse qaab ahaan waa Nigeria oo yar. Markii ay soo carareen, halkan ayay degeen. Biyahan waxay ku dul nool yihiin ku dhawaad 300 oo sano. Waxaynu aadaynaa supermarket. Tani waa waxa ugu yar ee ay tahay inaad samayso. Qiyaastii 35,000 oo qof ayaa ku nool magaaladan Sabaynaysa, balse waxay leedahay dhammaan kaabayaashii dhaqaale. Dadkana qaar iskuul ayay u socdaan, qaarna suuqa, halka qaar kalena ay u socdaan inay qaraabada soo booqdaan. Ka bulsho ahaan, si caadi ay u nool yihiin. Waxaad dirsan kartaa ilmahaaga si ay cunto kugu soo iibiyaan. Dadku doonta dhexdeeda ayay wax ku kala iibsanayaan, bakhaarna way u tahay. Dadka qaarna aroosyo ayay u socdaan, halka qaarna ay u socdaan inay wax soo aasaan. Xitaa kaniisad ayaa ku taalla. طلع. Halkan qarniyo badan ayay ku nool yihiin. Bal qiyaas adigoo dhul ka iibsaday haraadan dusheeda oo lagu weydiiyey aaway booskaagii, ma haraadan ay ku dhex yaallaa ayaad dhihi lahayd. Tani waa ambalaas, halkanina waa rug caafimaad. Bal aynu soo eegno. غرفة الإنعاش. This pharmacy. They were born on a floating city.
Monsieur. Supermarket-kan inoo dhow kuwan waa dukaamo, cafeteria-danna waxay ku taallaa halkan. في هون. Hadda bartamaha magaalada ayaynu joognaa. Kuwanina biyo ayay iibsanayaan. Hadda dhowr xabo moos ayaan iibsanaynaa. Maalintii oo dhan halkan ayaa seexan kartaa. Halkan adeega masaajka ma laga helayaa? ها Marka qolkani waa $12. ها Tani waa cajiib. Amazing. Waa musqushii. Waxay yidhaahdeen si toos ayay biyaheedu ugu shubmayaan harada ka hooseysa. Halkan ayaad ka kulmaysan kartaa. Diimaha ka jira Benin 35% waa Kirishtan, halka 27% ay yihiin Muslimiin, halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin Vodou iyo diimo kale oo qadiimi ah kuwaasoo Afrika ka jiray. Horaantii qarnigii 17aad, aaggan waxaa loo yaqaanay xeebta Addoonta sababo la xiriira ka ganacsiga addoomaha oo ku baahsanaa badweynta Atlantika. Luqadooda rasmiga waa Faransiis. Faransiisku wuxuu gumaystay in ka badan 100 sano, taas waxay ka dhigtay kuwo ka duwan dalalka deriska la ah sida Nigeria iyo Ghana. Faransiisku waxay gacanta ku hayeen keydadka dhaqaale ee 14 dal oo Afrikaan ah. Faransiisku wuxuu Afrika ka heli jiray dakhli iyo macaash gaaraya 500 milyan sida aan ka soo xignay warbaahinta Al Jazeera. الجزيرة. Maanta dalka Benin waa mid ka mid ah dalka ugu saboolsan Afrika iyo guud ahaan caalamka. عالم. Hadda waxaynu aadaynaa bandhigyo xalfadeed المهرجان. kuwaas aynu fasax ka helnay kadib markii aynu bixinay lacago aad u fara badan si aynu u galno gurigan gudihiisa kaasoo lagu dhex sameynayo caadooyin yaab leh. Waxaynu socdaal ku tegi doonaa tuulo 2 saac u jirta magaaladii aynu joognay. Waxaynu tusin doonaan dhaqamadooda iyo sida ay Vodou-ga looga dhaqmo halkan. Waa caadooyin la yaab leh. Markii aan galnay, waxaan arkay iyaga oo karinaya ay, dhiiguna uu meel walba daadsan yahay. Horteeda ay eygii ku gubeen. Waa qayb ka mid ah cibaadada Vodou. Halkaas ayay sheekadu maraysaa. Wax fikrad ahna kama haysto waxa meesha ka socda. Welcome to Wida. Here we are in the Vodou temple. بسم الله. halkan waxaa jooga wadaadadii oo dhan. Halkan ayay joogaan wadaadkii ugu weynaa waa kan. Waa hogaamiyiisa maaha. haa hadda waxaynu huraynaa si aan nabad u helno. For the peace, halkan ilaahyo badan ayaan ku haysanaa. Hadda hogaamiyaha ayaan waxaan ka codsanaynaa inuu caadooyinka inoo bilaabo. Digaag ayay bireeyeen kadibna ilaahyadii ay dhiigga kor kaga shubayaan. The photo says that you are welcome. He recognizes you. They welcoming me. Yes. Khamriyo badan ayay kor uga shubayaan. Dhab ahaantii waxa socda ma aqaan waxa ay yihiin. Bannaanka ayay u baxayaan si ay u dhammaystirtaan caadooyinkooda. Xamaasadoodu kor ayay u kacsan tahay. Durbaanadooduna ma ahan kuwo istaagaya. Run ahaantii tan oo kale weligii ma arag.
mid walba oo isku daya inuu baxsado way qabanayaan. qof walba oo isku daya inuu ka cararo sixirka isla markiiba way qabanayaan. dhulka ayay ku hayanayaan iyagoo Potter ku shubay korkiisa. kadib dhammaan waxay gelayaan gurigan cidlada ah, ma aqaan waxa ay ka dhex sameynayaan. waa kan gurigii cidlada ahaa. way gelayaan kadibna way ka soo baxayaan iyagoo dhar kala nooca wata. Yeah, they are singing because the spirit is already there. waxaan ku guulaystay inaan ku duubo diyaarad danoon ah si aan u arko waxay gudaha ku sameynayaan. gudaha ayay ku dhuumanayaan iyagoo sameynaya ficilo la yaab leh. xilligii ay qorraxdu dhici lahayd ayaa soo dhow. si kastaba ha ahaatee tani waa bilow, waxa beri soo socda ayaa ka daran. When I say the word voodoo, what do you think of? Sacrifice. Exotic, barbaric. We don't sacrifice human being for voodoo. Is serving the spirits. Vaudou, c'est la tradition africaine. waxaa la gaaray xilligii xalfadda. waxaa jirta laba nooc oo loo qabto xalfadda. mid waa tan ay dalxiisayaashu joogaan. dib ayaynu ugu soo laaban doonaa, balse marka hore waxaynu aadi doonaa tan tuulada kale ka jirta si aynu si qoto dheer uga ogaanno run ahaanshiheeda. waa meel aan lahayn xeer iyo xorriyadba. Normal. Normal, don't be afraid. بسم الله الرحمن الرحيم. dhacdadani halkan ayay ka dhacaysaa. waa meel ka baxsan magaalada. waxay yidhaahdeen xawskan hoostiisa waa been, cidna kuma jirto. waxaan isku dayi doonaa inaan runta bannaanka keeno. Nobody. gudaha qofna kuma jiro. macquul maahan inuu qof ku jiri waayo. macquul maahan. muxuu dhankii ugu soo socdaa? maya, adiga kuma soo socdo, kaliya waa mid wareeganaya. wuu iska wareeganayaa miya? haa, dhankayga ayuu soo socdaa. ma tooli kartid miya? sixirkani muxuu yahay? sixirkani waa in qof la duugo kadibna la gubo. waa run ahaa. qofkaasina dib ayuu jirkiisa u soo noqonayaa. taasi ma dhabbaa? haa, waa sixirka fooduu. ma sixirka fooduubaa? haa, ma aniga ayuu la hadlayaa? haa. cajiib. cawskani waa mid hadli kara. gacanta kurtaag haddii aad aamintay. wuxuu yidhi waxaa jira shay aan doonayo inaan ku tuso. waan gartay. hay tuso. taabo. qof miyaa gudaha ku jira? miyuu gubanayaa? haa, eeg, qiiq ayaa ka soo baxaya. qof meesha hadduu ku jiro miyay gubi lahaayeen?
ma qof baa gudaha ku jira mise qofna kuma jiro balse wuu gubanayaa maxashiish buu gudaha ku cabbayaa hadda waxaa la gaaray xilligii la gubi lahaa lana duugi lahaa cunug yar tani ma khiyaana waxay gudagelayaan inay duugaan kadibna ay gubaan dadweynahan meeshan taagan wiilkan yar ayay ka soo dhex xusheen si ay u duugaan waa kan godkii dadweynihiina halkan ayay taagan yihiin جمهورنا العزيز أيها الجمهور العزيز hadda waxay gudageli doonaan inay indhaha ka xiraan balse kana waa ilmo yar waxay u sheegi doonaan wixii uu samayn lahaa Are you serious guys? There is a kids inside. si adag ayay xadhigga ugu xidheen wax sahan ma ahan xitaa tani haddii ay tahay dileen xaaladdan daawo adigoo aan muuqaalkan kala goynin eeg tallaabada xigta korkiisa ayuu marayaa ilbiriqsi yar ayay ku qaadatay miyuu ku guulaystay inuu ilmaha qaato dhowrkii ilbiriqsi ma garanayo aynu isla eegno taasi waxay ahayd ilbiriqsiyada keliya ee uu ilmaha ku qaadan karay balse sidee bay ku dhacday macquul maaha There is a kids inside. Yes, there's a kid inside. Are you ready? They want to burn it. Okay. ولعوا فيه. يا الله. هذول مجانين. يا عالم. He burns with the in the fire. It is a voodoo. We cannot explain it. It is the reality of Africa. waan idinka cudur daaranayaa sababtoo ah halkan diiradda aad uma saarin aaway ilmihii hadda ayay isaga la xiriirayaan menun buu ka soo bixi doonaa miyaad la xiriirtay haa sidee ayaad ula xiriirtay keliya daawo adigu foodu wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaad wax ii hoos dhigto haa halkaa dhig Okay, leave there. So, Medahua Eramina Grammy, you have your deal. xitaa fooduu lacag ayuu qaataa kaale halkii aadaysaa aaway ilmihii wiilkii miiska hoostiisa ayuu ka soo baxay
dhanka kale bartamaha magaalada boqolaal dalxiisayaal ah ayaa isugu yimid si ay u daawadaan bandhigyada sixirka ah. Waxaan isku dayay inaan ogaado siday u qariyaan qofka gudaha ku jira. Eeg, daroontii ayaan ku soo kiciyey, kadibna waan ku soo dhaweeyey. waxaa muuqata inay keliya dab shidayaan, qof ku jira ma lahan gudaha. إنه ما في حدا. kadibna kor ayay u qaadeen si ay dadka u tusaan inaysan gudaha waxba ku jirin, sidiisi ayay ku soo celinayaan. Intaa wixii ka dambeeya wareegiisa ayuu sii wadanayaa. balse su'aashu waxay tahay, halkee buu qofkani ku dhuumanayaa? Ma waxaa xawska dhexdiisa ku yaalla meel la galo? Waxaa laga yaabaa inuu wiilka meesha ku dhuumanayo. markan tuuladii ayaan dib ugu soo laabtay si aan sirta jirta bannaanka u keeno. waa xilligii aan runta bannaanka keeni lahaa. waan ogaaday khiyaamadii. fadlan kor u qaad. fadlan soo qor ra'yiga aad ka qabto arrinkan. waxay leeyihiin waa qofta keliya ee kor u fiidi karta. miyay fiidaysaa? maya, ma dhici karto. waa meel eber ah. eeg, waxbay aruurinayaan. sidiisii hore ayay ku soo celinayaan. tani waa khiyaamo. hal xab ayay isgelinayaan, kadibna mid ayaa si degdeg ah ugu wareegaya cawska kale. intaa wixii ka dambeeya waxay bilaabayaan inay is wareejiyaan. kanaalka subscribe saar, wayna khiyaameen. lugihiisa ayaa halkan laga arki karaa. subscribe iyo like-tu waa dhankiina daawadayaal. C'est notre culture, c'est ça nous on adore ici. Ok, merci.